Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Soo dhawaada dhammaantiin meel walba aad joogtiin iyo xilli walba iyo waqti walba idin tahayba. Kusoo dhawaada barteena MK Skills One. Haddaba sida horey ula socoteen waxaanu halkan kusoo gudbinaa mar walba waxyaabaha la xiriira forex tradingka iyo online businessyada dhammaan. Soo hadday tahay markii ugu horreysay aanu soo booqato fadlan halkan subscribe dheh si aad macluumaad badan iyo information badan aad u hesho. Haddii aad tahay dadka hore noola joogayna fadlan soo dhawaada ayaa ku leenahay mar kale. Sidoo kale waxaad kusoo biri kartaa qaybteena Telegram linkigan wuxuu yaalaa qaybta hoose ee description-ka. Soo dhawaada dhammaantiin waa mar kale iyo muuqaal cusub. Waxaanu rabnaa maanta inaan muuqaalkan aan uga hadalno waxyaabaha la yiraahdo structure market-ka qaab dhismeedka suuqa siyaabo u sameysmo maxaa la yiraahdaa jihada suuqu haddii ahaan lahayd mid kor u socoto iyo haddii ahaan lahayd mid down trend u socoto. Mar walbana waxay u baahan tahay rule iyo information dhammaystiran inaad mid walba gaarkiisa ula macaamishid. Sidaa daraaddeed halkan waxaan kusoo gudbin doonaa waxyaabaha kaa saacidin doona inaad jihada fahantid mise inaad noqotid qof suuqa aan ka hor imaanin mar walba jihada u socdo la jirsada. Taasina waxay kaa caawin doontaa inaad khasaarahaada u yaraado qof maaragtay wax badan fahansan aad ahaatid micnaha trade-ka iyo maaragtay sababta loo raacayo meesha laga raacayo qof fahansan inaad noqotid ayay kaa saacidin doontaa taasina. Marka insha Allah isla fiirin doonaa. Soo dhawaada dhammaantiin. Sorry waxaan rabaa shaashadan kale ayaan wada tagaynaa. Ha ku dawaqmo shaashada waa shaashado badanahay. Marka shaashadan ayaan iskula fiirin doonaa. Halkan ayaan ku diyaarsaday note-kayga. Halkan qoraalkan haddaad dadka qaar qoraalka ay wax ku fahmaan dadka qaarna practice labadaba waa sameyn doonaa marka intiin u baahan inay fahanto note-kan yarka qof walba hala socdo marka sidaas ogaada mise muuqaalka intaa gashatid waxaa sameysaa ii sheeg screen maaragtay screenshot ka qaado si aad u yara fahanto mise u akhriso. Number one waxaan ku yiri fahan oo isku diyaari mise fahan oo fahan number one waxaa waaye fahan oo isku diyaari inaad caddeyso jihada suuqa inaad maaragtay jihada suuqa qeexi kartid mise aad falanqeyn kartid. Number one waa waxa ay ka bilaabanayso falanqeyntaada maaragtay maalinlaha ah mise weekliga ah mise wax rabta ahaatee trading view ay maatidba waxay ka bilaabataa shaqada dhanba oo dadku dhan ka sameeyeen traders hadday yihiin waa waxa loo yaqaano ii sheeg fahamka maaragtay suuqa trendigiisa. Haddii qofku kaas iska bilaabay wixii intaas ka baxsan waxay iska noqon kartaa wax aan complete ahayn qof isticmaalayo mise meesha ugu muhiimsaneed qof ka tago maaragtay ii sheeg maxaa la yiraahdaa 30% suuqa maalinkii maaragtay wax ka mid ah strategies ay ka maqan yihiin waa 70% ka maqan 30% isticmaala saas camal bay ka dhigan tahay. Laakiin markii maaragtay jihada aad fahansan tahay waxaa tahay qof complete strategy ugu xun isticmaal midka ugu fiican isticmaal yacni waxaa tahay qof maaragtay already wixiisu ay cad yihiin. Marka number one waxaa isku daydaa inaad fahantid isku diyaar inaad caddeysid jihada suuqa meesha loo socdo markaas and then haddii aad intaas caddeyso waxaa sameysaa si aad maaragtay u fahantid waxaa jirta laba jiho oo keliya jiha saddexaad ma jirto. Jihada koowaad waxaa waaye waxaa loo yaqaano waa uptrend oo inuu suuqu u socdo mid kor u jihaysan sida halkan uga muuqatid oo kale kaaga muuqdo kale suuqan hadda uptrend-ka u socdo kale inaad ujeedid oo kale oo aad tirahdid waa kaliya uptrend ama inaad tirahdid waxa la yiraahdo suuqu sidaas ma ahane waa bilcagsigiisa waxa ujeedaa inuu yahay kana down trend. Waa labadaas suuq waa inaad tiraahdo waa down trend ama waa inaad tiraahdo waa uptrend. Wax intaas ka dhexeeya ma jiro. Option-ka saddexaad oo mararka qaar meeshan soo gali kara wuxuu noqon karaa inaad tiraahdo suuqi maxaa la yiraahdo meelna ma haysto oo waa waxa la yiraahdo waa correction waxa la yiraahdo camal buu ku jira oo saan kor ayuu tagin hoostan leeg ayuu tagin korkaan ayuu handala tagin handala ka hoostan ayuu imaanin handala korkaas ayuu tagin
handala hoostaas ayuu imaan, handala korkaas ayuu tagay. Optionka keliya saddexaad oo soo raaci kara kaas ayuu noqon karaa. So kan laftirkiisa marka meesha waa ka bixinaa oo hadda ma dhahayno labadan jiha ayuu ka soo haro, qayb kale ayaa jirto oo saas. Sababtoo ah asagan laftirkiisa haddaad la dhiilgareysid oo maaragtay suuq wuxuu leeyahay wax la yiraahdo time frame. Time framekaas haddaad isticmaashid waxaa arki kartaa waxa loo yaqaano ii sheeg inuu asaga laftirkiisa uu yahay suuq maaragtay markaas jihaysan, korkaasna uu kor ahaan karo, hoos korkaan uu kor ahaan karo, hoostaan uu hoos ahaan karo, korkaan uu kor ahaan karo, halkaan hoos ahaan karo. Ayada laftirkeedana intaas ma laga weyn karo mar leeyahay, ma fahanti. Marka labadaas maaragtay jiho midkood ayuu soo qaadaa, inuu down trend aado iyo inuu up trend aado. Wax ka dhexeeya ma leh. Waa waxa la yiraahdo waxa loo yaqaano ii sheeg ruleska iyo maaragtay labada wax uu suuq u sameeyo. So qoraalkan meesha banaanka ayaan ku dhigi doonaa, screenshot ka qaado. And then waxaa kaloo marka aan kuu sheegaya markuu suuqu up trend noqdo, up trendkan wax lagu caddeeyo ayaa jira, layskama dhaho halkan waa up trend, halkaana waa down trend. Sabab ayaa jirta oo loo dhaho, sababtaasna wax kale ma ahan. Up trendka waxaa lagu gartaa ama lagu raadiyaa calaamadahan soo socdo. Okay, calaamadahan waxaa waaye higher high, HH waxaa laga soo gaabiyaa higher high, waa suuq inuu maaragtay kor samaysto, and then higher low uun korkaas hoostiisa soo samaysto, and then higher high kala samaysto, and then higher low uu samaysto, and then higher high uu samaysto, and then higher low uu samaysto. Waa korkii ugu koreeyay suuqa iyo korkaas hoostiisa iyo korkaas koreey iyo korkaas hoostiisa iyo korkaas koreey iyo korkaas hoostiisa ayuu suuqu uu samaystaa markuu up trend yahay. Markuu down trend yahayna asaguna waa dhinaciisa bilcagsigeeda, oo suuqu markuu down trend yahay waxaa asna lagu gartaa inaad ka heshid calaamadahan loo yaqaano ii sheeg maxaa la yiraahdaa lower low, and then lower high, and then lower low, and then lower high, and then lower low, and then lower high. ilaa suuqu intuu uu maaragtay wajiyadaas iska soo bedelayo ayaa waxaa loo yaqaanaa ii sheeg wuxuu sameeyaa calaamadahaas lower low iyo lower high. And then intaas markaa ka heshid suuq waxaa ku caddaanaya laba midkood inaa heshay up trend waxa loo yaqaano, oo calaamadaas lagu garanayo kuu soo sheegay ka raadisid, ama inuu down trend yahay oo sidaan kuu sheegay calaamadaas lower lowga lagu garanayo asna ka heshid, down trendka lagu garanayo asna ka heshid. And then waxaa kaloo kuu sheegaya inay jirto wax loo yaqaano qofba magac gaar uu ugu waco suuqu markuu sameynayo marxaladan kala duwan. Intaa yarta qoraalkan hoos gadaal ayaa ugu soo noqon doonaa, and then aan isla fiirino hal mar suuqu samaysmo. Markaan waxaan ku yiri up trend uu suuqu yahay wuxuu samaysanayaa, waan ku yiri dhaqaaq oo sidaan oo kale, and then nasiino ayuu soo samaysanayaa, and then kor ayuu samaysanayaa, and then hoos ayuu samaysanayaa, and then kor ayuu samaysanayaa. So waxaas ayaa waxaa loo yaqaanaa marka halkaan tagtid higher high ayaa loo yaqaanaa korkaan. So ma ujeedid, higher high ayaa loo yaqaanaa, sorry. And then hoostaana waxaa loo yaqaanaa, waan ku iri korkaan hoostiisi. Marka korkaan hoostiisi waxay noqonaysaa higher low, and then wuxuu suuqu sii samaysan karaa higher high kale oo ah korkaas korkii kasii horeeyay, and then wuxuu suuqu sii samaysanayaa handala mar kale korkaas hoostiisa nasiinadiisa oo ah higher low, and then wuxuu samaysanayaa korkaas korkiisi kasii koreeyay oo ah higher high. Intaas marka aragtid suuqa clear wuxuu yahay waxa loo yaqaano up trend. And then waxaad fiirinaysaa marka suuqan ilaa hadduu kor iskaga sii socdo oo sidaas ku sii socdo maanta dhan, waa la sii daba raacaysaa keliya calaamadaadii higher high wax ma kaa gelin. Laakiin waxaa jirto waxaad dhihi kartaa warnin suuqu soo kala wareegay, maxaa caddaynaya ii sheeg inuu suuqa jihadiisii dhammaatay iyo in kale. Suuqa jihadiisa waxaa dhammaynaya oo waxa caddaynaya inuu dhammaatay wax kale ma ahan. Waxaa waaye hoostaadii ugu hooseysay hadda yaa markaan hoosteeni ah ugu dambeysay halkaan ayaa ah.
markaa aragtid suuqu inuu hoosteenaan soo jebiyo oo sidaan usoo jebiyo wax kale ma sheegi karne suuqan waxaan leenahay hoostii ugu hooseysay sooma jebinaa jihadiisii wuu bedeshay oo siduu u bedeshay allahuma salli calaa muxamed let me wait 1 minute one minute one second okay calaamadana soo qaadano maaragtay kasta and then isla fiirino marka waxaa leedahay calaamad waxaa ku garatid si aa u dhigatid waxaa dhigan kartaa calaamadan oo exta oo maaragtay kalarkeeda guduudka yahay marka waxaad leedahay marba haddaa aragtay maaragtay ii sheeg lowgaadan oo lasoo cunay lasoo jebiyey laga soo hoos maray halkan suuq hadduu ku istaago waxay ka dhigantaa kor kale ayuu sii dhimay laakiin haddaa aragtid hoostan oo lasoo jebiyey waxay ka dhigantaa suuqan jihadiisa ugu bedeshay oo abtareenkan meesha ku jiray oo halkan sidaas u socday wuu dhammaaday oo wuxuu ka dhigan tahay waxaa biloobmay trend cusub oo lower low lower high lower low kale lower high lower low oo waxaa ku cadeynaya mar haddaa aragtid baan ku yiri halkan in la jebiyo calaamadan ayaa saaran kartaa and then suuq haddaa aragtid in hoostan lagu soo hoos xirmay and then pullback ayuu sameyn doonaa oo meeshan wixii kuugu beegnaa oo maaragtay supplygaada ahaa ayuu suuqu maaragtay u socdaa and then supplygaadaas markaas tago and then haddana wuu soo daadan doonaa move lamida ayaa soo dhaqaaqi doona so walba move ka daadanayana waxaa ku qiyaasaysaa movekan hore oo kale ayaa cabirkiisa soo qaadanaysa adoo wax weyn isdhibinin and then markaa movekaas aa aragtid cabirkiisa ayaa kiina intii oo kale ka saadaanaysa so oo daway dhimaan halkan kaa xiga midkaasi hoose ayaa lasii buuxin doonaa ayay ka dhigantaa so maxaa la yirahdaa suuqa abtareenka sidaas ayuu maaragtay ku dhismaa sidaas ayuuna maaragtay ku dhammaadaa so haddaa aragtid higher highgan aragtid higher lows aragtid and then wixii dambe oo ka dambeeya suuqa jihadiisu waa abtareen higher high la siraa haddii aragtid higher lowgaadii ugu dambeeyo lasoo cunayna waxay ka dhigantaa suuqa jihadaadii waa soo bedeshay okay asagoo oo maaragtay bilcagsigiisana isla sameyno okay markuu suuqu down trend yahay asaguna sidaan ayuu sameysaa lower low lower high lower low lower high and then lower low so marba haddaa aragtid baan ku yiri inuu suuqu sidaan samaystay hoos uu samaystay hoostaas waxaa loo yaqaanaa lower low oo down trendka suuqa ah ayaa samaystay lower low and then korkaana waxaa loo yaqaanaa lower high and then halkan waxaa loo yaqaanaa lower low kale ayaa loo yaqaanaa kana waxaa loo yaqaanaa lower low intaan ayaa mar walba calaamad sanaysaa markasta markaan ku yiri aad hadana hoostan aragtid suuqu intuu down trendkaas yahay wax kale ma alaaleyn kartid suuqu intuu marba saas uu hoostaas ugu socdo wax kale ma isheeg u oleyn kartid aduna waxaa leedahay hoostaas un baa ula sii jirsan ilaa ya maxaa marka adiga maaragtay ku bedeli kara waxaa ku bedeli kara wax kale ma ahan waa in suuqaadan down trendkana oo lower lowga hadana kan uu ahaa midka kasoo ugu hooseeya waa in asagii meesha horta laga saaraa midka korkaana siinadan sidee looga saari doonaa si kale ma ahan movekan halkan ka soo socdo aad rabtay inuu meelahan kuugu istaago oo demand zonekaadii iyo waxyaabahaadii dhan aad ka heshay waa xitaa mararka qaar laga yaabaa aa is leedahay supplygaada aa ka heshay aa is leedahay war suuqan maxaa la yirahdo waa abtareen waa isheeg waa down trend oo halkaan rabo in laga sii daato oo move down trend halkan uu ka dhaco maysa dhicinin waxaa dhacday in toos loo soo socday halkan laga dul maray meeshaan
movekii halkaan kasoo socday oo ahaa kan inuu toos halkaan usoo maraa laga soo dulmaraa ujeedaa. So marka waxaan ku yidhi calaamadan oo kale waa isticmaali kartaa haddii rabtid maaragtay adigu waxaad doonta isticmaal. Just waxaan ku sameynaya ana wax kugu sharxa unba kugu fahansiinaya waxa la yiraahdo calaamadan. So halkaan ayaad oo kale marka aragtid in lasoo jebiyey oo suuqa laga soo dulmaray waxa u oleynaysaa suuqan all the way korkaan uu soo jebiyey muuse ixtiraamin hoostaadii meeshaadii oo dhimaanka ahayd. suuqan waxay ka dhigan tahay kana wuu sii jebin doonaa kana waa sii jebin doonaa all the way waa kala wareegay ka dhigan tahay. So mar haddaa aragtid marka sida suuq inuu sameeyey oo halkaan la ixtiraamin so jihadaas sidaas ayay ku dhamaatay ka dhigan tahay. halkaan ayaa waxa ka bilaabi doontaa jiha cusub oo uptrend ah. So sidaas ayayna ku dhisantay jihada cusub oo uptrend ah. suuqana mar walba sidaas ayuu sameeyaa saan le uu sameynaa saan le ku xijina saan uu sameynaa and then bilcagsigeedana ayuu halkaan kusoo xijinaa. So marka suuqana waa isla fiirinaynaa hayadoo practical marka mar walba inaa isheeg rulkan haysatid maaragtay fahansantahay isku day waxa kaliya oo ku fahmi kartid waa inaa lower lowgan calaamadsated nasiinadiisa calaamadsated lower lowgan calaamadsated nasiinadiisa calaamadsated and then meesha ugu dambeysa suuqa laga jebiyey markaa heshid waxa ku cadaanaysa jihada hadduu suuqa uu socdo hadduu halkan laga jebiyey uptrend ayaa leeyahay. haddii bilcagsigeeda halkaan oo kale suuq saa usoo calaamadsato hoostan laga jebiyeyna waxaa leeyahay waa downtrend oo hadda waa fahmo meeshan waa ark. So calaamadaha mar walba downtrendka lagu garto iyo uptrendka labadan waa higher highgiisa inaad suuqa samaysatid iyo maaragtay lower lowgiisa inaad samaysatid. So marka waxaan isla tegi doonaa suuqa ayaan si practical iskula fiirin doonaa waan isla arki doonaa trade sida saxda ayuu ku dhismi doona iyo maaragtay si walba ay ku imaadeen. So daily oo kale aan tagno daily markaa tagno movekan halkaan downtrendka waan isla fiirinaynaa and then uptrend asagoo ahna waa isla fiirin doonaa ma marka waa kana suuqan halkaan markuu ku soo socday waxaa ujeedaa in maaragtay uu suuqan soo samaystay lower low halkaan ka soo samaystay and then lower high halkaan kale uu ka samaystay oo ah hoostiisa nasiinadiisii and then kan kale ayaa ah hoostii kale waatan lower low kale and then nasiinadiisii nasiinadiisiina waatan and then lower low kalena waa kan lower low waatan and then lower high kalena waa kana. mar walba suuqa inaad saan ula raacdo waxay kaa saacidin doontaa inaad qof wax badan fahmay noqotid oo suuqana uu hadhootidii ku cabirin marka dambe indhaha ayaa ka sawiran kartaa ma ku dhibi doonto laakiin marka u horeysa waa kugu adkaan doontaa runtii laakiin waxay u baahan tahay dadaalkeeda. So suuqa sidaas inaad u sawirtid ayuu kaaga baahnaan doonaa. So hoostan ayaa kasii hooseysay lower low kale waatan and then lower high kalena waa kan lower high kalena waa kana kan ayaa asagana kasii hooseeya oo ah lower low ugu dambeeyey waa kan lower lowgan markaa heshay suuqan haddeedan waxaan leenahay hoosta up downtrend ayuu ku socday suuqan oo waxa suuqan noo cadeeya wax kale ma ahane waa ruliskii downtrendka oo ahaa lower low iyo lower highgiisa u dambeeyey sidaan ayuu ku socdaa lower low lower high marka halkan jooga suuqo dul waxa soo olinaa inuu lower low kala samaysana haddana markuu nasiinada soo shaqeeyo waxaan soo olinaa mid kale inuu samaysto haddana halkan waxaan olinaa mid kale inuu samaysto and then haddana halkan markuu imaaday weli waxaa still u olinaynaa inuu downtrend kale oo hoostaas usii dhaco laakiin maxaa dhacay ma dhicin downtrendkii okay meeshii la rabay meelahan in la istaago halkan hadday supply noogu beegnaad halkan kale muu sameynin wax kale ma sharaxayo just waxaan sharaxaya waxa la yiraahdo structureka suuqa iyo qaabka u dhismo. So hadaa u baahan tahay is leedahay rule kale iyo wax kale ma sheegtid muhiimadda casharkeena waxaa waaye inaan qaab dhismeedka suuqa aan faahno ma ahan maxaa la yiraahdo isheeg inaan cashar kale oo extra wax kale aan sharxideyno marka waxaa ujeedaa suuq meeshii la rabay halkan inay haddii dhimaankeena noogu supplygeena ay noogu beeganta la rabay meelahan oo rulkeena kala keeno inuu istaago muusa sameynin
oo all the way waxaa ujeedaa suuqu abta maxaa la yirahdaa movekii ugu dambeeyay kan aha uu jabi oo weliba kan kale ayuu sii jabi hadda aragtay kii saddexaad ayuu kusii dhowaaday marka waxa kuu sheegaya oo halkan maaragtay inaadan ka gelin in kale kuu sheegaya waxaa waaye wax kale ma ahane isla trendigii waaye marka 1 hourka iyo maaragtay 30 daqiiqo la sii tagtay ayaan weli dhammaanin bay kasii dhiganta marka asagana waa la fahmi karaa oo halkan qof ku khasaaraya ma jiro dabcan qof waa gali karaa wuu ku khasaari karaa laakiin trendigan asaga laftigiisa si hoose usoo dhisaysaa soo si hoose markaa usoo dhistid waxaa arki doontaa inaad trendiga asagii la kala wareejinin waa asagana waa ku tusi doonaa 1 minute so movekan marka aragtay inuu all the way abkan aaday wax kale ma aadinin wax kale ma ahan waxaa leedahay halkan ayaa la jebiyey oo ahaa korkaadii ugu koreeyey oo ahaa ayaa la jebiyey baa leedahay all the way haddii halkan korkaadii ugu dambeeyey la jebiyeyna suuqa waxaa leedahay wax dambe uptrend dambe oo online ma jiro downtrend dambe oo online ma jiro suuqa jihadiisa sidaas ayay isku bedeshaa leedahay oo uptrend ayaa isku bedelmay suuqi dhammaan so halkan aan jaro wax yar okay waqtigaas ka yara gaabino sug marka halkaan isla fiirin doonaa powerkan nige waa tan halkaan haddaad timaadid sababta halkan qofku streetka uga geli karin oo caddaynaysa inuu trendigan uusa maaragtay entry line wax kale ma ahan aan sii dayno aan play dhahno heer sugo heer okay tradekan waxa meesha maaragtay aad uga geli karin wax kale ma ahayn marka waa kana intaan rabay intaan ay ahayd halkan waa kana dhayligaada iyo powerkaada waxaa ilaalinaysaa korkan in maaragtay la ixtiraamo oo suuqu downtrend sii socdo laakiin waxaa ujeedaa trendigan kale oo inuu ku dhex dhismayba powerka dhexdiisaba oo ujeedid oo kan ah inuu halkan maaragtay sameysmay waxaa loo yaqaano higher highga hadda kuu sheegaya oo halkan higher low inuu halkan ka dhismay higher high kalena halkan uu ka dhismay and then higher low kalena halkan uu ka dhismay so waxay ka dhigan tahay dailiga waxaa haysataa maaragtay suuq downtrend ah oo hoostii ugu dambeysa oo ahayd halkan iyo korkeeda oo ahayd halkan so inta ilaalinaysa mar walba oo maaragtay aad ka fikiraysid just adi waxaa waaye waa hoostan iyo korkeedan so intaan waaye waxa tradekaa ka dhisaysid and then marka halkan oo kale waxaaba tiri waaba kana waxaa loo yaqaano suuqa meeshaan rabi inaan aad dhigto ii sheeg waxaa loo yaqaano calaamadeedii ii sheeg calaamadeedii waxaa loo yaqaano ii sheeg maaragtay supplyga halkan ayaa ahayd waxaan rabay inaan dhigto and then suuqa waagu halkan yimaado waa meel entry ku beegan baa tiri okay halkan ayaa wuxuu samaystay kor cusub and then nasiino ayuu samaystay nasiinada markuu halkan uu meeshaan samaystay waxay ku qurux badneed ku fiicneed inaa halkan tradekaada ka dhisatay sababtoo inta halkan loo socdo ayaa trade kasii faa'iidaysan lahayd all the way suuqna waxa u online lahayd ilaa hoostan lasoo jebiyo iyo hoostan kale in suuqa aada dhihi karin waa kii okay halkan trade waa ka dhismi karnaa laakiin xaggan trade kama dhisi karo suuqa si guud waxaa leedahay waa down trend laakiin down trendkan waxaa markaan ku qiimeeyay dailiga uu ahaa wixii hore halkaas ka jiray hadda 4 hour baan joogaa powerkan higher high buu samaystay and then nasiino ayuu samaystay and then korkan korka koreeyuu samaystay oo kan ah and then wuxuu yimid nasiino soo markaan oo kalena entry kalena halkaan ayuu waxaa leedahay
all the way suuqan markaan waxaan leeyahay movekan move lamid ah ayaan u online doonaa oo ahaa midka halkan ka bilowda oo halkan kale ku dhammaaday. So asagana tradekan sidaas ayuu halkan uga geli karta. Sababta mid kale ayaan kuu sheegi doonaa aadan halkan tradekan uusan marnayba uusan sell u sii ahaan karin aadan u ilaan karin waxaa waaye hoostaadan trendigan hadda dhismay aan kuu sheego oo kan ahaa oo kiisi labaad kan ahaa ma lasoo jibiyo hoostan markii lasoo jibiyo mise hoostan kale waxaa dhihi karta oo meeshaan inta la tago moveka ku dambeeya kan soo maahan soo halkan soo ma tegin intuu halkan beriga ku qabto andan uu hoostan soo jibiyo hoostan hoose andan markaas waxaa dhihi kartaa war trendigan hoostiisii oo down trendiga ahaa oo dayliga ahaa ayuu kusii socon doonaa ayaad leedahay. laakiin intiiba ma dhicinine maxaa dhacay all the way suuqi meeshaan markuu ixtiraamin kor buu uga baxay halkii hoosoo halkaan ahaydne ma la soo jebinin oo kii ugu dambeeyo kana soo ma online kartin marka ilaa korkaas haddana waxaa ujeedaa in meeshaan korkaan laga saaray si guud haddaan sii daayo in la jebiyo arki doontaa. all the way waa kaasa waxaa ujeedaa suuq marka inuu kor uu saas u jebiyey and then mid kale ayuu halkan haddana kasii samaystay waxaa ujeedaa oo suuqi kor kale ayuu halkan kasii samaystay meeshii aa sugaysa inuu stop losskaada soo noqon doono ma soo noqonine kor ayuu iskaga sii socday suuqi intaas maxaa kuu sheegi kara istaraatiijigaadu ma kuu sheegi karo nooc walba u ahaada laakiin waxaa kuu sheegi kara waxa la yiraahdo structureka iyo qaab dhismeedka suuqa inaad fahantid mise akhrisid ayaa intaan kuu sheegi karta inuu suuq sidan sii ahaan doono mise korkaan kusii socon doono. laakiin haddii ahay lower low iyo lower high keliya aad tiraahdo waa calaamadsanayaan wax ma kuu sheegi karaan waxaa kuu sheegaya inaad time frameka iyo maaragtay iyo lower lowgan iyo lower highgan sida la isku waafajinayo aa fahantay ayaa ku saacidin kara. So dayligu ayuu ahaa wixii halkan aan ka saadaalinayna laakiin 4 hourkana sidaan ayaa ka dhacday 1 hourkana waa marxalad kale 30 daqiiqo waa marxalad kale midba marxalad gaar ayuu wataa. So intaas marxalad marka maxaa isku waafajinaysaa wax kale iskuma waafajinayside waxaa isku waafajinaysaa wax loo yaqaano isheeg maxaa la yiraahdaa structureka suuqa adoo fahmay ayaa isku waafajin kartaa. taasina se u dhacaysaa marka taasina waxay u dhici kartaa inaa marka isheeg waxa la yiraahdo maaragtay isheeg suuqa korkiisa iyo hoostiisa ugu dambeeya aa sawiratid time frame walba oo kala duwanna gaarkiisa aa ula tagtid. Okay, intaan hadda kuusoo sheegaya intaa in lamida ayaa halkan kaa tusi doonaa let me wait oo asagoo kor ugu sii socdan oo kaa tusi doonaa. intaana kor waa kaa tusi doonaa okay. suuqan haddeertan waxaa ujeedaa wuxuu samaystaa isagana waxa loo yaqaano higher high and then nasiino samaystay oo loo yaqaano higher lowgiis waa kan and then ilaahay kuma dhibe wuxuu samaystaa handale high kale uu samaystay and then nasiinadiisa ayuu samaystay and then korkii kale waa kan and then wuxuu samaystaa leedahay nasiinadan kale. So suuqaana waa abtaneen ilaa hoostaan oo dhan buu isla soo socday suuqaana waxaan tiri waaba abtaneen wax kuu diidaya ma jiro meeshan. Okay, ruulkaadii waxaadii dhan ba ka heshay uu ku waafaqay sidaa wax usoo falanqeynaysay oo higher low waa kasoo wada heshay. Okay, suuqan markaa intaas kasoo heshay waxaa ku jira meeshan okay all the way sorry kan oo kale wuxuu isla noqonayaa 4 hourka markii la joogo hal dhaqaaq ayuu isla noqonaya waxaan dhan hal move ayuu isla noqonaya and then moveka dambe oo la ilaalinayana wuxuu noqon doonaa kan ayuu noqon doonaa moveka ku xiga
kan hal daqiiqo ayuu isla wada noqon doonaa. So kan waa 1 hour buu noqon doonaa wuxuu kala googo-aan dambe, laakiin movekan 4 hour buu isla ahaan doonaa. And then also kanna korkiisa kale waa kan, hoostaana korkeedii kale waa nasiinadeedii waa tan, korkii ugu sarreeyay suuqana waa kana. Okay, 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 that's good. Yeah. Okay, marka suuqan uptrend ayuu ahaa. So halkan waxaan kuu soo sheegay inuu downtrendkan si usoo jiray uu suuq kala wareejiyey uptrendkan. Uptrendkaas qaabka lagu jebiyeyna waa ku fahansiiyey oo kuu sheegay. And then uptrendkanna siduu ku dhismay sidaan ayay higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. And then higher high kana ugu dambeeyay. So kan ayaa la soo jebiyay asagana. Asagana waxaa ujeedaa suuqu inuu soo jebiyey ugu dambeyntii waa kana. Kan ayuu ahaa maxaa la yiraahdaa ii sheeg train linekan aan maaragtay meesha saarnaay qasab ma ahan, haddaad doontana waa saari kartaa, laakiin waxaan just kala jeedaa inuu maaragtay wax isku kaa qabsiiyo oo wax kale ma ahane movekan laga soo hoos maro saas laka raba mooyaane wax kale oo qaasa ma wato. Marka hadduu ilaahay ku idmaayo waxaa arkaysaa marka hoostii ugu hooseysay oo ahayd kan in lasoo cunay. Markaaba aragtidba in sidaas loo soo cunay maxaa dhahaysa suuq waaba la kala wareejiyey oo iyaa kala wareejiyey sellerskii baa kala wareejiyo downtrend bay u direen suuqii dhammaan. Waa kana movekan ayaa soo jebiyey. Okay, movekan asagana marka maxaa leedahay marka mid kalan ayuu xigaa leedahay oo asagana nasiina markuu suuq soo sameeyo and then all the way downtrendkaas, all the way downtrendkaas ma dhacda sidii may kan marka hal trendiba trendi buu ku xiran yahay. Hadda halkan move oo maaragtay 4 hourka ugu dhex jeedid oo isla kan ah 1 hourka markaad tagtid waxaa ku dhex jira intaanoo trendi baa ku dhex jirta. 1 hourka waxaa ka helsaa dhaqaaq oo lower low ah, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. So mar walba marka waxay ku xiran tahay time frameka aad joogtid ee kuma xirnaa. Haddii anigu halkan aan ka helay higher high iyo higher low, anigu ku yiri suuqan waa uptrend asagoo halkan la marayo, adiguna movekan markuu uu maaragtay downtrendkan soo socdayba waa kana tusaale kasoo qaatay kan baa ku yiri waa uptrend and then waxaan ku yiri suuq markuu intaan nasiinada hoose soo socday suuqan waa uptrend, anigu uptrend baan ka rabaa. Okay, tusaale yar waxaa laga yaabaa inuu meelahan oo kale anigu aan trade markuu ka kacay aan qorshihii igu jiray mise aan sugayaa laga yaabaa meeshay tahay meeshan inaan ka sugayo oo intaanaa baxday soo noqoshadaana soo socotay intaan. Adiguna waxaad tiri war suuqan uptrend ma ahane waxa la yiraahdaa waa downtrend. Yaa saxan marka su-aasha meeshaas taal. Qofka saxan labadeena adna waa saxanta adna waa saxana. Sidee loo qof u saxmaa qosol baa ku jira soo ma wax kale ma aha. Halkan markii uu suuqu gaaray oo halkan movekan soo noqday ka soo qaad waxaan ku yiri anigu suuqan waa uptrend 4 hourkan weli ku dhaganay ka dhiganta. Okay, 4 hourkan movekan aan arkay oo uptrendka ayaan kasoo faa'iidaystay ka soo qaad and then waxaan ku yiri suuqan kalena waxa soo socdo waa downtrend soo ma adigu kalarkan banoo bedel sorry waxaad tiri waa sell. Okay, aniguna waxaan ku yiri sell ma sugaaye buy baan sugaya. Okay, buygaan sugaayo ma xuma is good. Yaa saxan baa taala soo maahan su-aasha. Anigu kan baan kasoo faa'iidaystay adiguna kan baad xilligan ka faa'iidaysanaysaa. So qofkee saxan adiguna waa saxanta anna waa saxan wax kale kuma saxan. Anigu 4 hourkan taaganahay 4 hourka wax ku qiimay soo ma 4 hourka halkan waa uptrend. So kan wuxuu noqonayaa nasiinadii and then kanna wuxuu noqonayaa movekii labaad oo ku xigay. So adigu marka 1 hourka ba joogta anna 4 hourka. Okay, okay, meeshayna dib ugu noqono waa kana 4 hourkii 1 hourkii ma ka helayo 1 hourkii jiha saxa ayaa ka helaysaa. Okay, okay, waa kana adigu kalarkan ahayd selkana u olanaysa soo ma. Okay, 1 hourkan isla fiirina marka.
wax big deal ah maaha. Wax haddaa fahantid just waxaa arkaysaa in wax walba si ay u shaqeynaa. Okay, waa kana lower low, lower high, and then sorry, and then waxaa ujeedaa lower low kale inuu halkan yahay, and then lower high, and then lower low, and then lower low, and then lower high, and then lower low, and then ilaa iyo awad, and then lower high, and then lower low, and then lower high, and then lower low, and then lower high, and then lower low. Okay, intaan oo dhan waxaa laga yaabaa waa soo garaacdaa oo kasoo qaad lower low, lower high, 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 lower low. ugu dambeyn anugu marka goormaa marka tradekan qaadan, aduu waxaa tiri down trainkaana kasoo faa'iidaysatay soo ma maalinkii marka halkan lagugu noqday, aduu waxaa tiri okay baygan kala handaa lasii raacay, aduu waa iga faa'iido fiicneed 2 jeer baa intaana waa soo cuntay, intaan kalena waa ila soo ordaysa andra marka halkaan aragtay in la jibiyey ayaa anigu marka waxaa laga yaabaa inaan intaan ku mashquulin marka 1 hour aan faraha ka qaado, and then aan move-kan kale tooska aan raaco. So waa afka wax unaa kaa dhahaya laga yaabaa inaad sababto intaana waxay noqonaysaa lacag badan oo qof daily uu sameynayn, intaana waxay noqonaysaa 90 bib. So it means dadka waxay ka dhigan tahay move-kan soo socda waa ka faa'iidaysanayna just waxbaan kugu fahansiinaya ma fahanti. Asaga laftirkiisana ma ahan inaan ignore garaynayno, laakiin trendiga guud aan ka hadlayno markaas 4 hour baan up trend, 1 hour kuna waa down trend. So 1 hour ka faa'iidaysan kartaa ilaa 15 la sii tagaysaa, sidaas ayaa uga faa'iidaysanaysaa ka dhiganta. And then ani marka gormo tradekan uu ii furan yahay mise uu ii yahay mid ii bannaan, wuxuu ii yahay maalinkii halkan la jabiyo. Okay, kii ugu dambeeya calaamadina halkan ayaa soo ma lower high ugu dambeeya kaas u ah. Okay, kana waa kii ugu hoosay. So maalinkii halkan la soo jabiyo oo sidaan madaxa looga maro, soo ujeed maalinkii halkan madaxa saas looga maro wuxuu ii yahay trendigaas ayuu hadda ii bilaabanaya bay ka dhigantay. So waxa ujeedaa korkaan ayaa looga dulmaray, and then waa laygu soo noqday zonekeygi, and then halkan ayuu entrygeyga iyo ruleskeyga kale ka raadsanaya. So it means sidaas ayuu tradekan igu dhismi lahaa bay ka dhigantahay trendiga. So ilaa markaasna maxaa target garaynaysaa tradekaada halkan ka dhistid, waxaa target garaynaysaa ilaa iyo korkaan kale in lagaa jebina. Okay, ilaa intee waa korkaan in lagaa jebina. So maalinkii korkaan la jebiyo waa ka haraysaa tradeka, sababto mataqaana wuxuu samayn doona meeshaana uga haraysa oo meesha aad mar walba maaragtay ka fikiraysid tradekaada marka la tago meesha reactionka laga samayn doono waa halkan. So marka hadda waaba dhaafo suuqa waxa ujeedaa markuu halkan tagay toos buu dhaafay, laakiin wax yar markuu socday ayuu isla markii soo noqday. Laakiin marna waxaa jirta bartaan laftirkeeda reaction lagaga sameeyo. So intuu suuq gelinba markuu afkaas tago ka dhac tradeka dhanba ka bax ma fahad. Suuq marka up trendiga sidaas ayuu asaguna ku dhismaa, down trendigana asna sidaas ayuu ku dhismaa. Okay, wax yar bal dib aa ugu noqono qoraal yar aan rabin aan ku sheega asagana. Okay, qoraaladan waa kan haddaa muhiim u arkaysid mise dadka qoraalka wax ku fahmi noodka tahay waa la bixi kartaa ma fahanta, waa reeban kartaa waxaa la yiraahdo screenshot waa ka qaadan kartaa si aad u yara akhrisid u yara fahantid. wax kale oo kuu sheegi raba wax kale ma ahan. wax kale ma ahan, waa kana waa qoraalkan yarka asagana kugu dibmari. Dadka qaar higher highgaas iyo higher lowas ma calaamadsadaan, waxna ma u arkaan ma fahan. Ereyo badan iyo macno badan bay kuula sameynayaan, kugu yeeli doonaan. Markuu suuqu dhaqaaqan sameeyo oo kan ah
waxaa kaloo ugu yeeri kartaa waxa loo yaqaano maaragtay move oo ah micnaheedu dhaqaaq. hadda markuu nasiinadan soo sameeyana waxaa dhihi kartaa pull back. Okay, haddana dhaqaaqan kale markuu sameeyana waxaa dhihi kartaa isla move. haddana markuu nasiinadan soo sameeyana waxaa dhihi kartaa pull back. Okay, si kale haddii aan magac kale loogu yeeran asagana wuxuu markale noqon karaa dhaqaaqan aan kuu sheegay oo move kugu sheegay markale waxay ugu wacaan continuation, and then nasiinadana waxay ugu wacaan correction, and then movekan oo haddana dhaqaaqana waxay ugu wacaan continuation again. mar kale ayay waxay haddana kana ugu wacaan waxa loo yaqaano correction, and then mar kale ayay waxay ugu sii wacaan waxa loo yaqaano continuation. sidoo kale mar kalena waxay ugu wacaan impulse, waa isla dhaqaaqi inta magaca lagu yeero waa move, continuation, impulse. haddana nasiinadan pull back, taas waa haridana waa arag. So haddii aad aragtid qof ku dhahaya move, pull back, move, pull back, hala yaabo, waa isla micnihii intii la higher low. haddaa qof aragtid continuation, correction, continuation, correction ku hayana hala yaabin, asagana waa higher low. So qof walba marka suuqa erey bixinta maaragtay isheeg fahanka maaragtay nidaam markaas aad isticmaalaysid ereygii baa micno kale lagugu yeera, laakiin waxaa laga yaabaa ereygii inaad fahansan tahay iyo maaragtay qaabkii loo sameynayo isheeg iyo micnaha lagala jeedo dhanba. So dhaqaaqan haddii aan ku yiraahdo move baa la dhahaa, okay, qof kalena uu ku yiraahdo lama dhaho move, waxaa la yiraahdaa continuation, qof kalena ku yiraahdo impulse baa la dhahaa. aduu difference u dhexeeya ma sheegi kartaa? wax kale maaha, waa micnayaal kala duwan baa lagugu yeera ereyo kala duwan faad. laakiin ugu dambeyntii haddii afka Soomaaliga aan kugu wada sheego waxaa waaye waa dhaqaaq, soo noqosho mise nasiino, waxaa rabta ugu wac dhaqaaq, soo noqosho mise nasiino yar, andan dhaqaaq kale, waa intaas un ma fahad. suuq markuu dhown tiran yahayna isla sidii le ma aha, wax kaloo bilcagsiya maaha ayadan. waxaa waaye waa isla intii la sameynaa. markii hore kor ayuu dhaqaaqay sooma, haddana hoos ayuu soo dhaqaaqay ka dhiganta sooma intaas. haddana nasiino yar buu galay ka dhiganta. nasiinada mar walbana waxaan ku yiri waa inay noqotaa inaysan dhaqaaqaan aysan maaragtay 50% mise 60% aysan la ekaan. tusaale kale dhaqaaqa nasiinadu waa inay half ka mid ku la ekaato, haddii kale marka qaar 30 ha ahaato percentage, boqolkiiba 20. laakiin 80% haddii hoostan laga soo galo it means meelahan la yimaado nasiinada afkaan hore loo soo saaro waxay ka dhigantahay suuq inuu meesha micno ka wato oo meeshan digniinta oo lagu fahansiinayo inuu suuq ku kala wareegi doono oo all the way ugu dambeynna sidaas loo dhaafi doono. laga yaabo inuu mar koowaad inta tago uu waxoogaa yar ka soo daato sidaas camal, andan ugu dambeyn saas u jiminayo. so mar walbana waa in maaragtay uu ahaadaa isheeg waxa la yiraahdo half ka mid ah waa inuu tagaa kadib uu soo noqdaa. haddana waxaa ku dhaqaaqan kale isagana waa islinti, waa impulse baa ugu wici kartaa, continuation baa dhihi kartaa, move baa dhihi kartaa, lower low baa dhihi kartaa, and then everything you want ma fahat. haddana nasiinadan yartaa waxaa dhihi kartaa lower low baa dhihi kartaa, lower high baa dhihi kartaa oo ah hoostan korkeedii oo ah halkan. sidoo kale move baa ugu wici kartaa, continuation baa ugu wici kartaa, impulse baa ugu wici kartaa, everything aad adigu doonaysid mise aad ku fudud baa ugu wici kartaa ma fahat. haddaa rabtid higher high iyo lower high ku qoran, move iyo pull baa ku qoro, continuation iyo correction ku qoro, impulse iyo pull baa ku qoro, aday ku qusaysaa. intaas ayaan hayadan rabay inaan kaa dabageeyo. haddii ay ereyadan iyo si kale aad aragtid si aad ugu qaadanin wax kaloo la yaab leh mise marka structure-ka qaabkee ereyadan loogu dabaqaa iyo hayadana wax la yaab kugu noqonin ma fahad. insha Allah muuqaalkan waxaan rajeynayaa inuu wax badan uu maaragtay trendingkaada uu kaa saacidi doono oo wax badan uu ka bedeli doono. waxa keliya oo boqolkiiba boqol isaacideeyey oo wax badan aan ka fahmay suuqa maaragtay waxa ka mid ah maaragtay market structure-ka suuqa. waana waxa keliya oo markaa fahantid suuqa dhan fahmaysid maaragtay sheekadu meeshay ka socoto iyo meeshay u socoto iyo danta la leeyahay iyo waxa dhan aa si guud u fahmaysid. waana waxa keliya markaa aa fahantid aa u dareemaysid inaa suuqa maaragtay number 1 aa wax badan fahantay ma fahant. sababtoo haddii aadan
market structure-ka aada fahminin si walba istaraatiiji fiican aa u heysid waa qasab inuu maaragtay kugu soo noqnoqdo suuqu in badan laakiin markaad structureka suuqi marketkiisa fahantid aad istaraatiiji walba isticmaalaysid aad ku dabaqaysid waxa la yiraahdo market structurekan waxaa yaraan doonta in suuq mar dambe kugu soo noqnoqdo oo kula meereysto oo dhinaca aad saxda ah mooyaane dhinaca khaldan aad u raacin soo marka intaan haddaa ku celcelisid mise in badan samaysid waxaa arki doontaa 100% inaa in badan oo kamid a tradingkaada wax badan khaldi jirtay inaad khaldi doonin insha allah muuqaalkan muuqaal lamida intaa ku kulmi doono waxaan kaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu qaybta hoose ayuu yaalaa linkiga telegramkeena waa in salaamo dhammaantiin habeen wanaagsan maalin wanaagsan wax walbay kugu tahay wanaagsan asalaamu allaahi calaykum